walidaalika waa laga yaabaa inaad aragto waxa ugu yara aynu iibinaa waa nacnac. hargeysa dhexdeeda anigoo marayaa nacnac iibsaday dhowr iyo sagaashankii markaasaan furay waxaa idhi war barorta aan akhriya waraaqda yara ku qoranayso jalaatiin baa ku jira. yacni xabada nacnaca ka bilow ilaa iyo waxa ugu sarreeya wax waliba waa ku jira. laakiin markay tijaarada gacanta ku qabteen cid aan muslim ahayni waxay noqotay xaaraantii yarayd ee farakutiriska ahayd in wax walba la saarsaaro. sidaa ogeed acyaantu waxa caynta uu qofka muslimka iibinayo waa inuu garanayo. tusaalayaal baan idin sii kooban. maalan waxaa la cuno oo dhan markaad eegto ama daawo oo dhan eegto waxaasoo dhan in badan oo ka mid ah ama dufan xaaraana ku jira ama alcohol xaaraana ku jira ama neef aan la qalin wixii baa ku jira ama doofaar wixii baa ku jira. waayo iyagaa more available iyagaa la helaya. waxaa laga yaabaa waxyaaba qaarkood haddan ka warramo inaad ka yaqyaqsootaan. waayo dadka waxaa ka shaqaynaya waxaan see loo helaa. tusaalaan ku siin cosmeticska dunida la isticmaalo qaybo ka mida proteiniska lagu daro qaarkood dhakhtarku wuxuu daadiyaabaa laga soo saaraa. caruurtan yarare lasoo daadiya soo mataqaanayn abortionka maydkan caruurtan la daadiyey. qaarkood baranbaro la beeray beed baranbara laga soo guraa. baranbarada soo mataqaanayn proteins baa laga soo guraa. qaarkood kaadida bini aadamkaa lagala baxaa. proteiniska qaarkood kaadida bini aadamkay kala soo baxaan. qaarkood yani ninka waxba xalaalka ma aha waxba xaaraanka ma aha. qof bini aadam aan waxbaba xaaraan agtiisa ahayn oo haddana isagu gacanta kuugu hayo wixii la samaynayey. shareecada markaynu eegno xaaraantu waa wax yar 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 yar. waxa kaloo dhami waa xalaal. maalan waxa la cuno o dhan qur-aanku dhowr shay buu tilmaamay bes sunnaduna wax yaroo kooban bay ku dartay. marka sidaa loo eego xaaraantu waa farakutiris waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 wax loo odhan karo. xalaashuna waa waxa soo hadha. laakiin markay tijaarada gacanta ku qabteen cid aan muslim ahayni waxay noqotay xaaraantii yarayd ee farakutiriska ahayd in wax walba la saarsaaro. sidaa ogeed acyaantu waxa caynta uu qofka muslimka iibinayo waa inuu garanayo. tusaalayaal baan idin sii kooban. maanta industriga ama warshadda waxaa loo yaqaano dad aan muslim ahayn baa gacanta ku haya. waagii horena reer galbeed oo qaarkoodna ahlu kitaab yihiin qaarna diinlaawayaal yihiin baa gacanta ku hayay. imikana asia kusoo biirtay oo ama malaaxido ah siday u badan yihiin chinesku ilaahba rumaysnayn ama hinduus iyo beliya baas kale ah iyo buudhiis. idan diinlaawayaal kaloo ahlu kitaabku ka sokeeyaan oo kasii fog ahlu kitaabka. warshaddu markay shayga samaynayso 2 shay baa asal oo ay ka fekertaa. shayga taklifadiisu inay jabnaato iyo availability inuu productionku aanu kala go-aynine aada heli karto wafradiisa inuu mutawafir yahay. dunida waxaa badani wuxuu noqday ee mutawafir agtooda ah. maalan waxaa la cuno oo dhan markaad eegto ama daawo oo dhan eegto waxaasoo dhan in badan oo ka mid ah ama dufan xaaraana ku jira ama alcohol xaaraana ku jira ama neef aan la qalin wixii baa ku jira ama doofaar wixii baa ku jira. waayo iyagaa more available iyagaa la helaya. waxaa laga yaabaa waxyaaba qaarkood haddan ka warramo inaad ka yaqyaqsootaan. waayo dadka waxaa ka shaqaynaya waxaan see loo helaa. tusaalaan ku siin cosmeticska dunida la isticmaalo qaybo ka mida proteiniska lagu daro qaarkood dhakhtarku wuxuu daadiyaabaa laga soo saaraa. caruurtan yarare lasoo daadiya soo mataqaanayn abortionka
meydkan caruurtan la daadiyey qaarkood baranbaro la beeray beed baranbara laga soo guraa baranbarada soo mataqaaniin proteins baa laga soo guraa qaarkood kaadida bini aadamkaa lagala baxaa proteinska qaarkood kaadida bini aadamkay kala soo baxaan qaarkood yani ninkan waxba xalaalka ma aha waxba xaaraanka ma aha qof bini aadam aan waxbaba xaaraan agtiisa ahayn oo haddana isagu gacanta kuugu hayo wixii la samaynayey walidaalika waa laga yaabaa inaad aragto waxa ugu yara aynu iibina waa nacnac hargeysa dhexdeeda anigoo marayaa nacnac iibsaday dhowr iyo sagaashankii markaasaan furay waxaan war barorta aan akhriya waraaqda yara ku qoranayso jalaatiin baa ku jira yani xabada nacnaca ka bilow ilaa iyo waxa ugu sarreeya wax waliba waa ku jira taa maxaan uga dan leeyahay taajirka muslimka ahi waa inuu og yahay waxa uu iibinayaa contentiska wuxuu ka samaysan yahay waxaan uu iibinayaa qofka muslimka ahi uu soo qaaday ee dunida dabadeeda ka keenay ama sharaab ha noqoto ama cunno ha noqoto ama daawo ha noqoto ama waxay doonaysa ha ahaato waxaan la sidaa inuu yahay wax xalaal ka yimi iyo wax xaaraan ka yimi xaaraantu waa yartaynu dhe laakiin ogaan bay meel walba u saarsaareen waxaan leenahay markaa qofka muslimkaa waxa hortaagan taxaddi alxalaali walxaraam ugu horeyn tijaaradaada see baad uga ilaalin lahayd xaaraanta see baad uga dhigi lahayd wax xalaala bini aadamka waa iskaga abuurantay xoolo jacaylku oo xoolaa waynu jecelnay wainahu lixubi اlkhayri la shadiid watuxibuuna almaala xuban jama bini aadamku xoolaha aada buu jecelyahay inuu helo laakiin qofka muslimka ahi wuxuu u baahan yahay inuu iska hubiyo xoolahaasi meesha ay ka soo gelayaan waa waxyaabaa laynagu beeray si laynoo itixaamo nabigu calayh salaatu wasalaam waa kii tilmaamayay qofka bini aadamkii haddii laba waadiyo dahaba uu haysto labtaqa thalis buu dalbaya mid saddexaad buu raadinaya hunguriga bini aadamka ciidunbaa buuxisa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba waxaynu u baahannahay inagoo noocaasi laynoo abuuray ayaa waxa laynagu yidhi kaasina waa xalaal kaasina waa xaaraane kaad qaadataa baana lagugu abaal marinaya dhanka kalena nafta bini aadamkii markay ururisana waxaa laynagu itixaamay kale waxaa ka mid a uxdirat ilanfusu shux waxaa laynagu xaadiriyey bakhaylnimo wa kaana alinsaanu qatuura nebigu wuxuu tilmaamaya yahra bnu aadam bini aadamku waa gaboobaa laba shay laakiin ma gaboobaane dhallinyaradu mu ka ahaadaa xoolo jacaylka iyo ilaalintooda iyo cimriga iyo amalkaa dheer iyo da-daas in la sii jiro bini aadamku kama gaboobo maxaa ku saaran marka dunida waxa yaallaa baynu idhi waa nooca ah technologigina wuxuu fudaydiyey wax walba in la qaabayn karo wax walba in la qaabayn karo wax badan oo aanad adigu sawiranayninna inay cunooyinka ku jiri karaan matala cunadu daasadaha ku jirta wax dhadhan loogu sameeyaa lagu daraa oo chemicalska marka la isku walwalaaqo wax dhadhan u sameeya waxa dhadhanka u sameeya xaggu ka yima isweydiin leh waxaa lagu daraa wax isku haya inaanay kala miirmin oo iskase waxa isjiidadkiisu inaanu kala bixin ayaa lagu daraa waxaa lagu daraa wax cimri dharar u sameeya inaanay hore u xumaanin waxaa lagu daraa konton shay waxaa lagu daraa qaar midab loogu yeelo waxaasoo dhami cunadii caadiga ahayd baa lagu walaaqaya cunadii xalaasha ahayd ee caadiga ahayd baa waxaan inta lasoo qaadaa lagu walaaqay waxaad moodaysaa inuu beris khaliya yahay ama inuu fuul khaliya yahay ama inuu cambe yahay baad ugu haysataa laakiin waxa ku walaaqane ku guda jira way tiro badan yihiin sida awgeed waxaan leenahay qofka taajirka ee muslimka ahi weliba dowladaheennan burburay aan cid waxbaadhaba lahayn waa laga yaaba meelaha adduunka dowlado adagi ka jiraan inay dowladuhu laab leeyiin iyo wax baadhaan oo censorship oo maxaa la soo deynayaa se maxaa la soo deynaya in la isweydiiyo waxaan leenahay cala lmuslim bay maanta waxoo dhami saarantay qofkan taajirka ee muslimkaabaa waxaasoo dhami saarantay inaad xalaal iyo xaaraan kala dooratid
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل xoolahaas qaabkay kugu soo galayaan inaad xalaalnimadooda ilaaliso waana kuu nabigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam waxyaabaha ugu badan ee qofka diintiisa fasahaadiya inay ka mid tahay maalka iyo mansabku nabigu yihi laba yeey ama laba waraabe oo adhi lagu sii daayey ugama fasaad badno qofka siday diintiisa u fasaadiyaan maxay xirsu lmari cala almaali waasharafi lidiini qofku xoolaha jacaylkoodiiyo si u ururinayo iyo sharaf iyo maamuus iyo magac iyo mansab iyo dowladnimo siduu u raadinayo aakhirana ilahi wuxuu leeyay qaar inta lasoo taagay inay ku halaan hali doonaan maa agnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya xoolihii waxba igama tarin iyo sulطaankii iyo maamulkii iyo wixii aan haystay oo dhan casriga dambana wuxuu nebigu ku tilmaamay inay ummadda zaman ku iman doonto laa yubaali lmar'u maa akhada minhu amin xalaalin am min alxaraam wakti aanay dadku uba aaba yeeli doonin waxaan soo gelaya ma xalaal baa mise waa xaaraan weliba soomaalidu laba dhibba way qabtaa markay dhanka maalka joogto dhaqan hore qadiima way qabaan oo waracu ku yaraa soomaalidu geelay qaadi jirtay soo maha geel nin muslima foofsaday oo halkaa uu dareersaday saaka ayaa inta la qaadaaba weliba ammaan loo haystay idan tii baadiyuhu dhaqankeedii hore kaasoo ah tii magaaladuna waxay noqotay in la isweydiiyo wuxuu lacag matay waxaa ku soo gelayaa lacagun maye inaan loo eegin ma xalaal bay kaa soo gelaysaa mise xaaraan bay kaa soo gelaysaa ta dadka ka dhaxaysa iyadu kumaba sii jirto dowladaha iyo meelahaasi lacalla dadka wax isku darsadaa in badan inay isboobaan lacalla waxay u badan tahay dadku masalada maalka waa masalo adag sida awgeed waxaynu leenahay laba shayba waad u baahantihiin kow marka hore waxaana iibinaysaan xalaal iyo xaaraan waxay yihiin inaad garataan marka labaadna dee inaad sharciga u egtaan dhankii kale ee wax iibinta iyo wax iibsiga iyo sharci bua jira ilaahay inoo soo dejiyey sharcigaa la inoo soo dejiyey waxna xalaal buu ku tilmaamaya waxna xaaraan buu ku tilmaamaya waxna waxaa lagu tilmaamay inay maxay yihiin mutashaabih ama shubahaad inuu ku jiro nebigu wuxuu u tilmaamay ninka waxyaabaha xataa madmadow kaga jiraan kaga tagaa inuu kaasi diintiisa dhowrsaday ka ku dhiirada waxaa madmadowga ku jirana inuu ismiga ku dhacayo sida awgeed taxadiga labaad aan tilmaamaya ama challenge-ka ama caqabada labaad ee dadka soomaaliyeed haysataa ama muslimkaba intooda badan haysataa waa jahliga diinta jaahilka laga yihi salaada inkastaba ha leekaatee waxbaynu ka baranaa ugu yaraan weysadu waxay ku burtay iyo waa naqnaqaana cumuuman salaada waxay ku asaxday arkaanteeda waa naqaana laakiin haddaynu isweydiino yaa weli beecu fadhiistay oo bartay maca طulaabulcilmiga ku dar xataa kutubta la dhigo inta badan طulaabulcilmiga dee cilmigan dambe ee gabadh ahi inta baabka cibaadaadka marka la qaataaba la iskaga tagaa walidalik baan arkayay nin culamadii soomaaliyeed hore ka mido minhaajka markuu bilaabayo kitaabulbeyc buu ka bilaabi jiray wuxuu odhan jiray kolley waa ka tegeysaa kane kamaaliday ka bilaabaya buu odhan jiray sababta waxay tahay waxa yar dadka intuu fadhiistay isweydiiyey war muxuu beycu ku asaxaa shareecadu maxay ka qabtaa sidee wax loo iibiyaa ilaah iyo rasuulkiisu maxay inooga sheegeen waxiibka
bale waxaad moodaa inaynu u dhadhownahay qoladii nebi shucayb loo soo diray maxay yidhaahdeen ma waxaad rabtaa an nafcala fii amwaalina maa nashaa bay ku doodayeen maxaa dhaqaale iyo diin kala galay bay lahaayeen dhaqaale iyo diin maxaa kala galay tijaare iyo diin maxaa kala galay laakiin waxaan leeyahay masalada labaad ee madowgu ku jiraa markaa waxay tahay xadiidkii طalab اlcilmi fariida calى kuli muslim ee ibnu maaja warinayey sanadkiisa inkastoo culamada qaar ay ka hadashay imaamu axmed iyo bayhaqi iyo nawowi iyo qoladaasi daciifisay haddana albani iyo suyuud iyo rag kale waa tasxiixiyeen laakiin macnaha xadiidka culamadu isku waafaqsantay in cilmiga la dalbaa oo qofka wixii farad isaga ku ah haddaad guursanayso cilmiga guurka inaad barataa dee waajib uu kugu yahay gabadhu maxay kaaga furmaysaa iyo maxaad ku qabaysaa iyo maxay xaq kugu leedahay haddaad tijaareynaysana waajib ay kugu tahay inaad barato maxaa tijaarada ka banaan maxaanse ka banaanayn haddaad salaad tukanaysana waajib ay kugu tahay salaada inaad barato idan qof walba diinta waxa kaga waajiba inta khusaysa sidaa awgeed waxaynu leenahay dadka tijaarada ka shaqeeya haddaad can jahlin ku gasho waxaad walaaqdo dee aakhira waa lagu qabsanaya adigoo awoodi karaya inaad barato haddaad intaad iska bilowdo un tidhaahdo war waa insha allah waa iska hagaagaysa de anaa lacagtumaan dhiibaya isna alaabtumaan ka qaadanayaaye maxaa kale laiga baahan yahay hadduu arrinkaagu gaadho waa lagu dabaqaya si awgeed waxaynu leenahay taajirka muslimka ah korkiisa waxaa saaran axkaamta beyca iyo shiraaga ku soo aroortay iyo baabilbuyuuc wixii ku soo arooray inuu barto si uu uga baxsado ribe iyo maysar iyo wixii shareecadu mamnuucday oo dhan si uu uga baxsado si awgeed ba imaamu nawowi raxmat ullaahi caleyhi majmuuciisa wuxuu ku tilmaamaya beeca iyo nikaaxa iyo wixii la halmaala ayuu wuxuu kasoo naqlinayaa nuquul imaam alxarameyn iyo ghazali iyo qoladaasoo leh waxaa mutacayina qofku marka uu rabo intuu waxaa qabto inuu barto shuruudooda iyo waxay ku asaxisiya waxaasi markaasuu isagu wuxuu leeyahy war tacayunkaa horeba ka kaale waxa xaaraama inaad bilowdaba waxa xaaraana aliqdaam calayhi ilaa bacda macrifati sharطi marka la garto un baad bilaabi kartaa buu tilmaamaya aimadii muslimiintii horena cumar bin alkhadaab baa wuxuu odhan jiray war ninka aan axkaamtaasi garanayno laa yabci fii suuqina ilaa man qad tafaqaha fi ddiin suuqa iyaga iyo wax ku iibinin nin diinta gartay mooyaane nin diinta fahmay mooyaane taa macnaheed waxa weeyaan dhanka kale haddaan idinka tuso wixii a isleediin qaanuuniyan waa lagu dhacayaa legal termska waa u egtaan intaa looyar u tagtaan baa contracga ugeysaan oo tidhaahdaan bal hadda contracga kan eeg sharcigaas u waafaqaya iyo waxaa wixii ku saabsan cashuurta dowladda iyo waxaasi waa soo barataan waxa laydinkaga yeelanayo si ama uga gorgortantaan ama uga baxsataan ama u bixisaan si dab kastaba ha noqotee waad isku daydaa inaad wax ka soo ogaa wax allaaliya waxaa idinku xidhan haddaad wax iibsanayso haddaad imika guri iibsanaysa ama meel iibsanaysa inta badan iskama qaadatay waxaad tidhaha nootayadayna gee nootayadu muxuu qabanayaa qaanuunkuu kuu eegaya wuxuu waafajinayaa shuruucda meesha taalla oo maxaad diiday inaad diinta u eegto marka inta kaleba waad u eegi garanaysaaye inta kaleba waad u eegi garanaysaa waanad raadinaysaa aqoonteeda maxaad diiday markaa inaad u eegto waar ma ku bannaanta mise kuma bannaana waxay dhahaan tujaartii hore muslimiinta ahi waxay lahaan jireen niman fuqaha ah oo la taliyo u ah qaarkoodna waxay lahaan jireenba fuqaha ay ku daraan safarkooda oo safarkaasi intuu maqan yahay wax soo gadanayo waxaasoo dhan ka eega beeca wixii xalaal u dhacaya waxa xaaraan u dhacaya tusaale kale aan idin siiyo markaad gabadh guursanaysaan waxaad tidhahdaan wadaad inoo doona gabadhaad guursataan miya jirta iyadaan wadaad joogin hadda wadaadku shaqaba kuma leh gabadha guurku wuxuu hasaxaa maxay
dee weligeedii iyo ninkii bixinaya iyo markhaatiyadii iyo intaan laysla helo ayuu ku asaxa. wadaadku shaqo kuma leh. haddaa maxaa loogu yeedhaya? waxaa loogu yeedhayay war bal inaga hubi waxaanaanu wadnaa inuu sharciga waafaqsanya. intaasuu wadaadku u fadhiyay meesha. siiqadan ay u dhacayso ku guuriyey dee masiiqo saxa ma tahay, markhaatiyadani markhaati galeen ma yihiin, ninkani weligii bal ha sheekh kitaabka u ego hubi intaanaanu wadnaa. oo maxaa diiday markaad wax iibsanaysa inaad tirahdo bal sheekh hadda kitaabka u ego intaanaanu wadnaa? ila waa isku mid. kitaabka nikaaxa iyo kitaabka beeca waxba uma dhexeeyaan, waa isku mid. kanba waxaad ogolaatay in sheekh loo tago oo la eego wuxuu saxmayay mise ma aha. kanina waa la mid marka. saa awgeed waxaan leeyahay marka hore waxaynu iibinayno acyaantaynu iibinayno maxaa xalaal iyo maxaa xaaraana. wadaadkuba laftiisu wax badan kama oge, cidda wax ka og weydiiya oo baadi doona oo waxaana gadaysaan iska hubiya. waxaanaad gadaysaan iska hubiya. marka labaadna waxaan leenahay sida wax loo iibiyo wax loo gado wuxuu sharcigu ka qabo waa la baran karaa. 2-3 maalmood baa kugu filan oo course fiican lagu siiyo oo aad basiga fahamtid, usuusha aad garatid. wixii masale markaa madmadow galana aad ula tagtid sheekhaaga la taliyaa ku ah ee markaa kuwa muftiga ah aad wixii masale madmadow galana weydiiso. laakiin inta bayska ah asalka ah dee inaad cidna u daba fadhiisan aad ogaato oo aad garatid. subax walba dukaankaad furaysaa iyo dukaanku wuxuu beeciisu ku asaxay iyo waxaanu ku asaxaynin. qadiyadda labaad ama saddexaad aan tilmaamaya waxa weeyaan tijaaradu iyo xoolo dhaqashadu inaanay cibaadada kale inaga mashquulin. inaad nolosha oo dhan ka dhigin lacag see loo helaa. oo marka waagu bariyo intaad ka lahdo habeenkii marka la seexanayo inaad soo fadhiisato intaana shilin sidii loo heli lahaad ku maqan tahay, waxa kaloo dhan aad gacan bidixayso. markaa waxaad soo baxaysaa cabdu dirhami wa dinaarku uu nebigu sheegayay inaad dirhamka iyo dinaarka addoon aad u noqoto. taajirka muslimka ahi ilaahay cibaadadiisa iyo diintiisa kama mashquuliso tijaaradu. saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka kuwa ammaanayana wuxuu yihi rijaalun laa tulhiihim tijaarat walaa baycun can dikri اllahi waiqaami الصalaati waitaaءi الzakaat yakhaafuuna yowma tataqalabu fiihi اlquluub wاlabsaar. masaajidda kuwii camiraya waxaa lagu tilmaamay inay rag yihiin aanay ka mashquulinin ganacsiga iyo waxiibsigu ilaahay xuskiisa iyo salaada oogisteeda iyo zakada bixinteeda aanay ka mashquulinin. munaafiqiintiina maxaa ilaahay ku tilmaamay shaqalatnaa amwaaluna waahluna bay idhahdeen. kuwii munaafiqa iyagu waxay idhaahdeen shaqalatnaa amwaaluna waahluna, xool iyo carruurtii baana mashquuliyey oo miyan waxbaba haleelaa buu leeyay. ootay xoolaha ma addoon baad u tahay, xoolaha adigaa lehe waxay ahayd inaad adigu wax ka haleesho. saa daraaddeed ilaahay qur-aanka isagoo qolo dhaleecaynayo wuxuu ku tilmaamay waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min altijaara wallahu khayru raasiqiin. maalinta jimcaha aadaanka dambe hadduu dhaco waa xaaraane wax la iibiyaa, ma banaana. aadaanka dambe jimco hadduu yeedho in wax la iibiyaa waa xaaraan. haddii markaa ay kaaba mashquuliso salaadii iyo khudbadii iyo wixii oo dhan tijaara kaa mashquuliso ka waran. waa kuwa ilaahay uu ku tilmaamayo tijaariya lahu hada infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min atijaara. saa awgeed ayuha alaxiba waxay leenahay qofka taajirka ee muslimkaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo cibaadadiisa iyo diintiisa barashadeedu shilinku inuu ka mashquuliyo maaha. iyana waan soo koobaya marka intaa waxaan ku darayaa taajirka muslimka ahi tijaaradu waa inay noqotaa waxaad ilaahay ugu dhowaanayso.
hadday dariiqii saxaa marto ilaahay bay kuu dhoweynaysaa. waa goorma? waa goorta aada ku dhaqanto albiri waالsidqi waالtaqwa. waa goorta aada ilaahay kaga cabsato. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya albayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wabayana burika lahuma fii baycihima wain katama wakadaba muxiqat barakatu baycihima. labada wax kala gadanaya khiyaarulmajliskay leeyihin inta aanay kala tegin. yacni waxbaa hadda kala gadateen, weli maydan kala dhaqaaqin, waa kala noqon kartaa. khiyaarkii weli wuu jiraa. haddaba wuxuu nabigu yihi fain sadaqa wabayana, hadday run sheegaan oo caddeeyaan. run sheegu waa maxay? casrigan dambe waxaa soo baxay miisaanka iyo mikyaalka iyo wax oo dhan baa la isku khiyaameeya, oo qishku meel walba wuu galay. waxaad arkaysaa daawo 10 miligram loogu talagalo maadadaasi inay ku jirto 2 miligram lagu soo shubay. waa qish. runka sheegi maysid. wixii iyo magacaan magaciisa ah inaad ku qortay, intaad indiye kusoo walwalaqdabaad odhanaysa waa kii ugu dambeeyey ee maxay jabaan lagu sameeyo. waa qish kale. wuxuu yahay waxaan ahayn waa dadka ugu maalgelinayso aad kaga sheegto. miisaankiisoo aada dhinto. birahan meesha ku dhisan ee iminka sabada inoogu dhisan qiimay lahaayeen. ironka ku jira maalan, tujaarta intay tagaan bay dha ironka adeer ka yara khafiifiyo waxa kale ku badi, qiimahan dhibaya hadhow suuqa isku erigan ka qeyb gelayahay. markaasu wuxuu leeyahy birta tani waa tii 2 inch ahayd. de waa 2 inch oo beena ma aha, 2 inch oo irona ma aha, waa 2 inch oo aada soo walwalaaqday. ironka ku jira waxaa laga yaabaa wixii berigii hore lagu dari jiray 50% inaad ka soo dhintay, laakiin caamadu ma oga. saasaad kaga iibinaysaa. waxaad leedahay waa tii milimeterkeedu waa tanna waa 5, kanna waa 10, kanna waa 20 maad kaga iibinaysaa. waa been kale. miisaankaa la qaldaa. gadbadaad kusoo qoraysaa 50 kiilo, laakiin 49 baad odhanaysaa kusho kii ku gurayay. dushana 50 baa kaga wada qoran. 49 ood kusoo guraysa. dee dadku intuu jawaanka qaado inta badan miisaankaa saari maayo, odhan maayo war 50 kii ma tahay ama 25 kii ma tahay. laakiin si aad qiimaha u yaro dhinto suuqa isku eriga uga qeyb gasho ayaad waxaad leedahay kiilo adeer ka reeb 49 ku gur. dabeetana 49 baad keenaysaa. maradaad odhanaysaa cotton weeyaan, cod baad kaga iibinaysaa, waana polister. magacuun baad xagga sare kaga soo qortaye maadada ka samaysantahay cudbiba maaha, cotton maaha, waa polister baad kasoo saartay. yacni qaabka wax loo khiyaamaya waa tiro badan yihiin. dee tujaartuna way maqlaysaa, aad bay u fahmaysaa baan filayaa. waa suuqiinii. walidalik nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam haddaad run ka sheegtaan, adeer aniga gadbadaydu waa 49 kiilo baa kaaga iibinaya. bahasha tan talyaanigaa kusoo sameeyo waa runtay, waa dhab. miligramkaa ku qorani waa sax, waxaa ku qoran bay ka samaysan tahay. haddaad sidqigaa la timaado, runtaa sheegtid oo caddaysid hadday ceeb kala leedahay, wuxuu ku yidhi war bahashani waa jabaan iga iibi. markaasaa tiri isma garan maayo de u raaci, waa jabaan. ha jabaan weeyaana qaado. waxay idina tiri adeer maaha tani jabaankii waa taiwankii tani. khalaas hadduu kaaga iibsanayo taiwannimada ha ku iibsado. nebigu wuxuu leeyahay haddaad run sheegtaan oo caddaysaan burika lahuma fii baycihima, waa loo barakeeyaa beycooda. xooluhuna barakaday ku badhaadhaane badnida kuma bataan. badnidu qiimo ma leh. badnidu hadduu bato oo ribo noqdo yamxaqu llahu riba baa taalla. waa barako beelaya. wain katamaa buu nebigu yidhi hadday qariyaan wakadaba been sheegaan muxiqat barakatu baycihima, beycoodu wuu barako beela. idan waxaynu leenahay taajir muslima noqo oo
waxaad iibinayso ka run sheeg, wuxuu yahay dadka u sheeg. been ha ka sheegi. ma diidanin waxyaaba yaroo unique ku ah oo aada haysato meeshaad ka keentay qarso, waxaan qarso, taas adaa ku shaqo leh, laakiin waxa shayga qiimaha u samaynaya un been ha ka sheegi. waxa uu qiimaha u samay value-ga samaynaya been ha ka sheegi. intaa waxaa dheer inaad dee qof muslim oo dunidii qishkii iyo wixii way bateen, laakiin haddana qofka muslimka ahi waa inuu qof jajaban noqdaa. oo jajabnidu maxay keensanaysaa? kii daynka la yara raaga haddii aanu waxba haysanin muddo si, hadduu mucsir yahay ka dhaaf. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay nin dadka markuu daynka bixiyo inankiisa shaqaalaa ku yidhaahda war haddaanay waxba haysan iska dhaaf, innagana in ilaahay inaga dhaafaa baa la arkaya. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu la kulmay, dabeetana isna ilaahay baa dembigiisii u dhaafay. waa kii nabigu tilmaamayay ilaahay ha u naxariisto qof markuu wax iibiyo samaaxa ku jirto beyciisa, aan dadka ku dhibin. hadduu wax iibsanayana, haddaad wax iibinayso dadka ha ku qaali garaynin, u naxariiso. haddaad wax iibsanaysana dee dadka ha baksino, nafta ha isugu keeni. haddaad dayn cid ku leedahayna si fiican uga dalab, haddii adiga lagugu leeyahayna si fiican isaga bixi. waxaynu u baahannahay inaynu wax badan markaa xalaal miiradkii dib ugu noqono. taajirka maanta jooga siduu xalaal miirad u noqon lahaa waa ma fududa, waase noqon karaa. maanta dunida systemkeeda oo dhami ribo ku salaysan yihi. ribana nebigu wuxuu ku tilmaamay ka cuna iyo ka cunsiiya iyo ka markhaatiga ah iyo ka qoraya, waxeedoo dhami waa malcuumu nebigu sheegaya. wax oo dhami systemka dhan ee lagu baac mushtaraynaya dunida ee dhaqaalana iyadu ku salaysan yihi. intaad ka fakan kartaa, haddaad feejig tahay unbaad minimise garayn kartaa, calal aqal yarayn kartaa, aada wax ka fakan kartaa. ayuha alaxiba, guud ahaan waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu yimi suuqii ay wax ku kala iibsanayeen ayuu yihi yaa macshara tujaar, war raggiina wax kala gadanayo buu nebigu yihi. waa la soo eegay markaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam, markaasuu wuxuu yihi ina tujaara yubcahuuna yowma alqiyaamati fujaara. tujaarta qiyaamaha waxaa la soo taagaya badanoo ka midi iyagoo faajiriina, faasiqiin, dembiilayaal iyagoo ah, ilaa man itaqa allaha wabara wasadaq buu nebigu yihi. mid ilaahay ka baqay oo samafalay oo run sheegay mooyaane. tujaarta inta badani fujaar bay aakhiro kusoo baxayaan buu nebigu leeyay. waxaa laga yaabaa inaad is leedahay xoolo xalaalaad shaqaysanaysaa, haddana ay xalaal noqon kari waayaan, waa mid dhib badan. waxa uu nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam gaflada ay maalka iyo tijaaradu keento inaynu ka baxno. wuxuu nabigu inoo sheegayaa meelaha suuqa laqwiga iyo dhaarta ku badan. laqwiga iyo dhaarta waxaa ku qastaan buu nebigu yihi bal sadaqada badiya, waxbixinta badiya, si ay maxay laqwiga tirada badan le iyo dhaartan tirada badan le iyo waxaan idinka yarayso. bale waxaad ka garan kartaa dee dhulka ilaahay ugu jecel yahay, nebigu wuxuu ku tilmaamay waa masaajida. dhulka ugu sharka badan lana abgadu lbilaadi ila llahina waa aswaaqda buu nebigu yihi, meelaha wax lagu kala gato, meelaha wax lagu kala gato. sida awgeed meeshaasi maadaama dembigu ku badan yahay, haddaad markaad gelayso xasuusato ilaahay oo aan gafladu kugu dhicin. nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam qofka marka uu masaajidka marka uu suuqa gelaya yidhaahda
laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu yuxyi wayumiit wahuwa xayu laa yamuut biyadihi اlkhayru kuluh wahuwa calaa kuli shayin qadiir. ninka intaa yidhaahda marka uu suuqa gelayo ilaahay kaa wuxuu u qoraa buu nabigu yihi alfa xasana, waxaana laga masaxaa alfa sayi-a, gurina jannada looga dhisaa. waxay culimmadu ku sababeeyaan, waxay yidhahdaan meeshan baa ah mawطin اlgafla, waa meeluu qofku markuu soo gelayo maxaad macaashtaayo maxaad dilaashaayo maxaa uu ka fekeray inta badane aanu ka fekerin wardiga iyo aakhira iyo alla aanu ka fekerin. saa daraaddeed ba waxaa la yidhaha haddaad wardiga akhrisato markaad suuqa gelayso waxaad leedahay alf waa kun. luqada carabeede hore wax milyan la yidhahda ma jiro, kun baa u badnaan jiray tirada carabta. marka lasoo tiriyo kun ay gaadho wixii ka dambeeya kunkan unbaa la isku celcelin jiray. kun in la yidhaahdo iyo kun alf in la yidhaahdo. 3 alif haddii la sheego waa 1 bilyan, 2 alif haddii la sheego waa 1 milyan. waa saanaynu hadda u tirino ee tiradan dambe dunida. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya waa alf waa 1 milyan oo xasanaad helaysa, 1 milyan oo sayi-ana waa lagaa masaxaya, gurina jannada lagaga dhisaya. laakiin ma haleelnaa? su-aashu waa taa, ma haleelnaa markaynu suuqa gelayno inaynu intaan idhaahno? waxaynu u baahanay marka. saa ogeed baa salmaan alfarisi xadiidka mawquufka ku ah imaamu muslim warinaya wuxuu tilmaamaya, waa suuqa markaad gelayso haddaad awoodo ka ugu horeeye gala ha noqonin, ka ugu dambeeye ka soo baxana ha noqonin, fa inaha macrakatu shayطaan wa biha yansibu raayatah. meeshu waa goob dagaalka shayطaan iyo halkuu calanka ka taagtay weeyaan. waxay culammadu yidhaahdaan intaad u horgasho haddana ha u dambaynin, calalqal haddaad kuwa hore xataa ka mid noqoto dee kuwa kasoo horbaxa noqo. marka intaad u horeyso ha una dambayni. waxaan filayaa waktigii salaada male waa gaadhay. waxaan kusoo koobayaa taajirku inta aanad bini aadamka la tijaaraysan ilaahay la tijaarayso, ilaahay la ganacso, oo sidii aada tijaarada ugu janno geli lahayd ee aanay lacagoo quro u noqoteen ay u noqon lahayd jannadana wixii ku gelin lahaa tijaabi. oo dadkii muslimiintii hore tujaarta ahaa dee duni dhan oo muslima maanta niman tujaar oo muslimiin unbaa tegay oo diinta u sheegay. markaa warkaan gabagabaynaya anigu waxaan u imi inaan idin tambiihiyo. xataa su-aalaha kama jawaabo, idinkana jawaabi maayo, de macallin baan ahay. macallinku ma fahamteen buu yidhaahdaa, wixii la fahmi waayo ayuu maan dib ugu noqonaya. waxa allaaliya wixii su-aala doctor khadar iyo dokaatirada kale idiin joogta ayaa weydiinaysaa. anigu waxaan u socday waxa weeyaan inaan idhaahdo war waxbaa idinka maqane raadiya.